dunidii oo dhan ayaa ciriiri ku noqotay ilaa uu ku dhuuntay god hoostiis. xaalad adag ayuu ku jiraa. wuxuu leeyahay waan argagaxsanahay, meelaan galana ma aqaano. wuxuu ku calaacalayaa dad caadiya iska daaya, xitaa dowladihii ayaa ii goodinaya. waa kuma ninkan ay cuquubada ku dhacday, ciiddiina ay ciriiriga ku noqotay, hameenbana god u hoydaa. assalaamu calaykum ummadda muslimiinta ee ku hadasha afka Soomaaliga. waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan qabataan oo sii sheergareedaan si uu gaaro muslimiin badan. muuqaalkana like saara, like waxay gaarsiinaydaa meel fog. magaciisu waa Salwan Momika. waa kirishtaan u dhashay dalka Ciraaq. waa ninka ay dowladda Sweden ogolaashaha iyo ilaaladaba ku siiday inuu gubo musxafka shariifka ama quraankeena kariimka. laakiin hadda cadaab adduunyo ayuu ku jiraa. wuxuu taagan yahay heer xitaa uusan seexo karin. wuxuu sheegay inuu ogolaasho buuxda uga haystay gubidda quraanka kariimka waaxaha kala duwan ee Sweden. wuxuu leeyahay ammaankayga waxaa mas'uul ka ah dowladda Sweden, ayaguna waxay dhaheen difaaca naftaada. xaalad adag ayuu ku jiraa ninkan. hameenba meel ayuu seexdaa. waxaana la sheegay inuu u cararay godad ku yaala kaymaha Sweden kadib markay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha dowladaha islaamka si adag uga hadleen xaaladiisa. maalintii koowaad ee ciidda ayuu ninkan ku gubay kitaabka quraanka dalka Sweden, asagoo dusha u saaray mas'uuliyadda dembigaas dalka Sweden. Sweden waa dowladda ugu xaq jirsan, ugu muslim nacaybka iyo cunsuriyadda badan dalalka caalamka ee gaalada. aad ayayna muslimiinta u dhibaateeyaan. waalidiinta ayay ilmaha ka qaataan sabab la'aan. tusaale ahaan, bilo ka hor waxay diideen in la gubo Tawreed. anaga ka muslimiin ahaan ma gubayno Tawreed iyo Injiil midna, laakiin ma ogola Tawreed iyo Injiil iyo qawaaniinta ummadaha kale in la gubo ama in lagu xadgudbo ma ogola. waxay u arkaan xorriyad darro, fikrad nacayb iyo cunsuriyad. laakiin in quraanka la gubo ama muslimiinta in la dhibaateeyo waxay u arkaan xorriyad iyo wax iska caadiya. Sweden waxyaalaha sharaf dhaca ku ah waxaa ka mid ah, sharaf ma lahan waa gaalo, laakiin waxyaalaha bahdilka ku ah waxaa ka mid ah inay badankooda dowladii islaamka safiiradooda uga yeerteen. sidoo kale in badeecooyinkooda iyo shirkadoodu inay ka shaqeeyaan laga diiday dowladaha islaamka badankooda. cashar ayay u noqotay tani. xitaa ayaga ayaa ka qoomameynaya. badanaa saxafiyiintooda way dhaliilayaan. maxaan mar walba annaga u galnaa dembiyaasha noocaan oo kale ah? Salwan Momika waa hogaamiye kooxeed xag jir ah, dhiig badanna soo daadiyey. waxaa la sheegay inuu xubin ka ahaa koox maleeshiyaada oo mas'uul ka ahaa gubidda iyo dhibaataynta dad sunniyiin ah oo ka dhacday gobolka Al-Anbar ee waqooyiga dalka Ciraaq. ninkan mujrimka ah wuxuu u soo cararay dalka Sweden. martiqaad iyo soo dhaweyn ayayna u sameeyeen. wuxuu rabay inuu mar labaad sameeyo, yacni inuu mar labaad gubo quraanka kariimka, laakiin wuxuu yidhi ma samaynayo. noloshaydii ayaa ciriiri gashay, dhulka ayaa ciriiri igu noqday, meel aan ku hoydana ma aqaano. saaxiib, adiga ha dhaafin muuqaalkan adigoon like saarin, siina sheer garayn. islaamka guul.